maanta waxaan dul istaagaynaa mabda'ii gumaystuhu ku shaqaynayey. Sidaad ka arkaysaan, ninkan waa Richard Cofield oo markaa daraawiishtu ay dishay taaladii isaga loogu baroordiiqayey oo loogu hibeeyey amba loo hibeeyey. Laba qodob bay markaa taaladu ku fadhiday oo markaa ujeedka gumaysiga oo dhan labada qodob uu ka duulay. Qodobka koowaad waxaa la yidhi wuxuu u dhintay Richard Cofield weeyaane. Waxa uu dhintay adeega u khidmeynta dalkiisa oo waajibaadka dalkiisa isagoo gudanaya ayuu markaa u dhintay. qodobka labaadna marka laga yimaado taa waxay ahayd qodobka diinta oo ah in dagaalka uu ku dhintay inuu dagaal xaq yahay. Marka waa aayad Bible-ka laga soo qaatay kitaabka Samuel ee markaa Bible-ka oo marka ay leeyihiin dagaalku waa dagaal xaq ah. oo marka dulmiga iyo gumaysiga iyo adoonsiga iyo bililqada waxa la wado waxa weeye waa wax xaq ah. xaqaasna waa mid uu markaa ku salaysan inuu waajibaadka dalkiisa gudanayo. marka tan waxa weeye taaladii markaa loo dhisay kadib Richard Cofield marka ay daraawiishtu ay dileen. waxaynu soo qaadanaa ninka labaad weeyaane nin la dhaho Borden Smith oo markaa ka tirsanaa guutada Hampshire Regiment oo markaa lagu dilay dagaalkii Jidbaale. isna markaa taaladanu waxay leedahay amba ku xardhan aayado amba sadaro laga soo qaatay isla kitaabka Bible-ka oo markaa leeyahay ilaahay ha u naxariisto wax noocaas oo kala oo markaa ilaahay ruuxdiisa ha sugo. waxa weeye nuxurka markaan soo gaabiyo waxa weeye in isna geeridiisaas ay tahay geeri xaqa bay markaa iyaguna sheegayaan. iyagoo markaa halkan ku sheegaya magaciisa iyo guutadu ka tirsanaa iyo dagaalkii amba killed in action oo markaa lagu dilay dagaalkii Jidbaale Somaliland 10 Janaayo 1904. marka isna taaladanu waxa ay ku salaysan tahay in markaa dagaalka uu ku dhintay ninkan oo markaa daraawiishta ay ku dileen Jidbaale inuu markaa ku dhintay amba uu ku shahiiday oo kale oo markaa dagaal xaqa uu ahaa. halkan waxa weeye isna taalo kale oo markaa loogu baroordiiqayay amba loo hibeeyey saraakiil dhowr iyo 10 ahaa oo markaa ku dhintay dagaalkii Cagaar Weyne. isla taaladan haddaad eegto markaa waxaa ku qoran markaa iyadana aayad laga soo muguriyey kitaabka Bible-ka oo markaa iyadana ka la falgelaysa in markaa dagaalkan uu dagaal xaqa ahaa. waxaasoo dhan markaa waxay ku tusinayaan in gumaysiga aragtidoodu ay ku dhisnayd iyo hadafkoodu ay ka duulayeen mabda ah mid military cudud military iyo mid diineed. xagga daraawiishta halgankeedii loo sawiray inay ahaayeen dad argagixisa oo xag jira iyagoo markaa koodana diintoodu u ogolaanayso inay dadka gumaystaan oo markaa hadday dhintaanna ay yihiin kuwa xaqa ku taagan ilaahayna u gargaarayo sida Bible-koodu sheegay iyagoo markaa Bible-kooda soo delishanaya. xagga ka daraawiishtana ku tilmaamaya dad qaswadayaal argagixisa. marka dhibaatada ka sii daran waxa weeye in markaa dad Soomaaliyeed ay aaminaan waxyaabaha markaa iyagu ay soo xarxariiqeen iyagoo markaa aan arkayn aragtida dhabta ee markaa ka dambaysa dadka saancadaalayaasha iyo gumaysigeeda iyo sidoo kale qursiga ay qursanayaan dadka madowga iyagoo u arkaya dadka madowga inay yihiin bil aadan aan dhamaystirnayn. marka ayaan darada dhib ka dhacay waxaa ka sii daran markaa dad madowga oo Soomaaliyeed in laga dhaadhiciyay markaa in aragtida gumaystuhu inay tahay mid xaqa tii daraawiishtuna ay ahayd mid argagixisa oo dhibaato iyo qalalaase u taagnayd. isku soo wada duubo aayadahan ku xardhan taalooyinkan ciidamada Ingiriiska ee ku dhintay ee daraawiishtu dishay waxay ka turjumayaan aragtida dhabta ee markaa ay ku salaysnayd isticmaalka iyo aragtida saancadaaluhu. waxaana loo baahan yahay markaa qofku inuu fahmo waxa dhabta ee gumaysigu ma garanaysaa ku salaysnaa mana aha inuu qaato xogta jildiyada la soo qorqoray. waxa loo baahan yahay in markaa xogta dhabta ee aragtida gumaysigu ku salaysnayd in la fahmo. si taa loo fahmana waa in raacdo iyo fiiro iyo research dheer lagu sameeyo si markaa sawir dhammaystiran looga helo aragtidii gumaystaha.